Bismillahi Raxmaani Raxiim. Waxaan bilaabaneynaa cashirkeeni 11aad kuna saabsanaa basic computer skills ayuu ku saabsanaa. Waa cashirkii 11aad 10 cashir ayaan hore usoo qaadanay. Cashirkan waxaan dhahnay totally free waaye. Qof walba oo afka Soomaaliga ku hadlayo wuu u furan yahay oo wuu ka baran karaa ama uu ka faa'iideysan karaa. Waxaan kaloo dhahnay buugga waa buug ayaan sameeyey oo daabacay. Buuggaas oo cashirka ku saabsan qofkii rabo wuu iga soo codsan karaa Muqdisho meeshuu joogo waa loogu geynayaa. Waa $6 iyo bar markii qofkii interest ku ah wuu iga soo codsan karaa. Laakiin casharada totally free waaye. Waxaana naga heli kartaan boggeena aan ku leenahay TikTok iyo YouTube-ka xirfad.com computers and technology ayaa naga heli kartaan. Marka cashirkeena haddaan gudaha u galno maanta waxaan qaadanaynaa maanta waxaa waaye test ayaan qaadanaynaa. Macnaha casharo ayaan soo qaadanay 10 cashar ayaan soo qaadanay oo hardware-kii ku saabsanaa. Marka waxaan maanta istijaabineynaa wixii aan soo qaadanay wax ma ka faa'iidnay. Haddii aan ka faa'iidnana horaan usii soconaynaa. Haddii aan ka faa'iidinna oo imtixaankii xoogaa mugdi uu naga galana taas waxay noo caddaynaysaa in aan dib ugu noqono oo waxay noo tahay in aan dib u noqono cashirkii aan ku noqono oo aan dib ugu noqono ay noo noqonaysaa aan soo akhrino. Marka waan istijaabineynaa imtixaan la iska qaadaa marka. Marka wuxuu ku leeyahay scenario ayuu sameeyey. Wuxuu inta noo dhigay printer system case-kii wuxuu noo dhigay halkan display-gii oo monitor-kii ama display-gii ayuu noo dhigay keyboard iyo mouse ayuu noo dhigay iyo speakers ayuu noo dhigay. So marka waxaan haysanaa 1 2 3 4 5 6 shay ayaan haysanaa. Waa scenario waaye. Scenario-han ayuu noo sameeyey. Marka wuxuu leeyahay marka in this activity you will identify activity-gan waxaan sameyneynaa waxaan caddeyneynaa personal computers components ayaad caddeynaysaa adiga ayaa you will identify qofka macnaha waxa soo qaatay casharada soo qaatay ayaa laga hadlayaa. Waxaan rabnaa inuu noo caddeeyo personal computers components-ka inuu noo caddeeyo ayaan rabnaa. See noogu caddeynaa marka number 1 qofkii wax ku barayay oo macallin ku ahaa your instructor oo aniga ah might provide you wuxuu ku siinayaa with example of computers components tusaalooyin oo computer components-ka oo kuwan ah ayuu ku siinayaa and ask you wuxuuna ku weydiinayaa oo wuxuu ku leeyahay other participants to identify them iyo dad kale oo ka qayb qaadanayo activity-gan in inay noo caddeeyaan scenario-gan ayaa lagu siiyey marka inay noo caddeysarnaa waxyaabahan. So marka wuxuu ku leeyahay in this graphic wuxuu ku leeyahay picture-dan waxaan uu ka wadaa identify cadday the A system unit waa caddeynaysaa 1 B display device waa caddeynaysaa C input devices waa noo caddeynaysaa waxaa kaloo noo caddeynaysaa D output devices. Intaan oo meesha yaalo wuxuu ku leeyahay midkee system unit ah 1 display device kee ah oo qaybtii muuqaalka keena siinayo input devices kuwa input ah oo casharada aan soo qaadanay waa output devices maxaa ah intaan meesha yaalo maxaa input device ah maxaa output device ah mideeda kale system unit waa kee waa caddeynaysaa. Waxaa kaloo caddeynaysaa display device waa noo caddeynaysaa kee waaye input deviceska waa noo caddeynaysaa output deviceska waa noo caddeynaysaa. Intaas shay maxaa input device ah iyo maxaa output device ah kee baa system unit ah kee baa display ah marka intaas waa inaan noo caddeysaa. Marka comment-ga igu soo qoraysiin mid walba midku yahay output-ka qaybta output-ka ana waa isoo qoraysiin maxaa output ah maxaa input ah system unit kee ah waxaa ku soo qoraysiin muxuu ahaa waxaa ku soo qoraysiin comments ayaa igu soo qoraysiin insha Allah. Kaas waa mid koowaad. Kaas waa mid koowaad anaa wax idin weydiiyey. Labaadna waxaa caddeysiin waxaan soo maaha saddexaad marka wuxuu ku leeyahay what is the minimum requirement for a function PC waxa ugu yar oo computer-ka uu ku shaqeynayo muxuu yahay. Marka waxaa lagu siiyey marka
bokisyo ayaa lagu siiyey iyo waxaa lagu siiyey muxuu ahaa deviceyo ayaa lagu siiyey. Deviceyadan hadda meesha noogu qoran haddii laysku geeyo maxaa noo noqonayo computer shaqaynayo, intaasuu kaa rabaa. So marka midka waxa ugu yar oo waxaa la rabaa oo computer ku shaqaynayo, number one wuxuu ku dhahaa input devices, speakers, system unit, webcam, display device. Intaan waxaad dooranaysaa marka inta ugu yar ee computer uu ku shaqaynayo. Mid wuxuu ku leeyahay what are the minimum requirements, waxa ugu yar oo lagaaga baahan yahay for a function oo u baahan yahay for a function PC inuu PC ga shaqeeyo, waxa ugu yar ayaa lagaa rabaa. Wuxuu ku leeyahay marka input devices, speakers, system unit, webcam, display device. Marka adaa lagaa rabaa inaad sheegtid comments noogu soo qor input deviceska, speakerska, system unitka, webcamka, display unitka. Intaas midka inta uu ku shaqey karo computer, inta ugu yar uu ku shaqey karaa lagaa rabaa. wixii dheeraad ah lama rabo, tibaa idin siinaya. wixii dheeraad ah oo ka dheer lama rabo, waa inta ugu yar uu ku shaqey karo. Marka commentska kusoo qor intaas ayuu maaragtay uu computer ku shaqeynaya. Number 4 wuxuu ku leeyahay marka number 4 haddaan imaano wuxuu ku leeyahay which computers components are part of the system unit. Tanna waxaa waaye which keebaa computers componentska ka mid ah ka mid noqon kara are part of the system unit. System unitka gudihiisa may party ka noqon kara. System unitka gudihiisa maxaa party ka ah oo maaragtay ku jira inaad sheegtaa rabaa. Maxaa qayb ka ah system unitka, maxaa qayb ka ah? Kow, chassis-ka, internal hard drive-ka, monitorka, portable USB drive, memory. So marka adaa lagaa rabaa midkii intaan system unitka inta qayb ka noqon karto oo maaragtay gudihiisa ku jiri karta ayaa lagaa rabaa. Marka chassis-ka waa soo qaadanay oo system unitku wuxuu ahaa boxiska ayuu ahaa. Internal hard drive-kana waa hard drive-kii gudaha ku jiray. Monitorkana display-gii waaye oo monitorka waxaa display-gii dhaladii waaye. Portable USB drive waxaa waa USB-ga keyga USB-ga oo gacanta lagu qaato, kaas waa portable USB drive iyo memoryga RAM-ka waa. So marka intaan oo meesha noogu qoran intee nooga mid noqon karta system unitka boxka weyn oo system unitka inteebaa qayb ka noqon karta adaa lagaa rabaa. Marka waxaa noogu soo qortaa commentska noogu soo qor. Marka intaas waaye midda koowaad oo ahayd oo picturekan uuna siiyey sawirada uuna siiyey. wuxuu yiri describe system unit maxaa la lahaa, display unit maxaa la lahaa, input device kuwee waaye and output device kuwee. Marka inaad noo wada sheegtiin ayaan rabnaa keebaa input device noqon kara, keebaa output device noqon kara, display unitka kee waaye, system unitka kee waaye, input device kuu noqona. Marka intaas oo dhan marka waxaa noogu soo qortiin commentska noogu soo qora. waa istijaabineynaa, imtixaan ayaan iska qaadaynaa. marka jawaabta idinka ayaa idinka sugaya insha Allah. marka hadda waxaan bilaabanaynaa qaybtii laabka ayaan gelaynaa maanta. laab ayaan qaadanaynaa ama laabka waa iska dhaafaynaa maadaama imtixaan aan iska qaadayno. maanta imtixaankaas ha noo ahaato, imtixaankaas ayaan ku ekeenaynaa cashirkeena. marka cashirkeena intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.